qofku inuu run sheegayo iyo in kala siyaabaa loo qiyaaso. nabigu calayhi salaatu wasalaam waraaquu qoray wakhtigii sulxu xudaybiya markuu quraysh heshiiska la galay ayuu waraaqa wuxuu u qoray boqorradii dunida isagoo leh war islaama waa nabadgeli doontaane. waraaqaha uu boqorrada u qoray maalan warqad ka mida waxaa ka warramaya abu sufyaan ibnu xarb intaanu soo islaamin markuu gaalka ahaa iyo wuxuu la kulmay. quraysh safar bay diri jirtay, mid ah wakhtu shitaa iyo wakhtu sayf. midna xaggan iyo yaman bay usoo diran jireen, midna waxay u diran jireen shaam bay u diri jireen. abu sufyaan wuxuu leeyahay safarkii aanu shaam u baxnay boqorkii romaniska ka talin jiray, dowladdii waqooyiga markaa ka talinaysay romaniska la odhan jiray albizantiya, magaaladan istanbul la yidhaahda caasimadda u ahayd constantine, ayaa markii uu guulaystay ee ka guulaystay nimankii bershiya uu jabiyey dagaalada qur-aankuba ka warramayo fii suurati rum, ayuu soo inuu meeshii bayt almaqdis ay iman jireen oo cibaado u iman jireen buu yimi. meelaha markuu yimi baa waxa u timi warqaddii nebiga calayhi salaatu wasalaam, waraaqdii uu nebigu u soo diray. waraaqdii markii uu helay ayuu wuxuu isku dayay inuu ogaado bal ninkani horta wuxuu sheegaya inay run tahay iyo in kale. qofka bini aadamka haddaad rabto inaad ogaato taariikhdiisumaa la baadhaa. taarikhdiisa haddaad baadho markiiba waad caddayn kartaa inuu run sheegaya inaan run sheegay. nebi maxamedna daa markii waxyi uu ku soo degay hortiiba maxay loo yaqaanay asaadiq alamiin. wuxuu uhi waa ninkan cid la dhalatay, cid garanaysaa ma joogtaa magaalada? waxaa la yidhi ha safar baa jooga maka ka yimi, igu yeedha buu yidhi. waa loo keenay. waa dhowr nin. wuxuu ku yidhi waxaan idin weydiiyo, kiinee ugu dhow qaraabanimo intiina tan, kiinee qaraabanimo ugu dhow? abu sufyaan baa yidhi dee aniga. abu sufyaan iyo nebi maxamed xaggay isugu yimaadaan? waa reer bani cabdimanaaf soo maaha. nebigu waa moxamed ibnu cabdillaahi ibnu cabdilmuطalib ibnu haashim ibnu cabdimunaaf. markaa waa awowga saddexaad bay isugu yimaadaan. yani cabdilmuطalib baa awowgii ruma ah, haashim baa ku xiga, cabdimunaaf baa ku xiga. abu sufyaanna cabdimunaaf buu yimaadaa. abu sufyaan baa wuxuu yidhi anaa isugu reer dhow, anagaa isu jiliba. abu sufyaan buu yidhi halkan hore soo fadhiiso. nin turjubaanana halkan buu yidhi fadhiiso. intii kalena abu sufyaan buu daba fadhiisiyey, xagga dambe ka fadhiista buu yidhi. wuxuu yidhi ninkan waxbaan weydiin doonaa ee hadduu been ii sheego waa beentii dhaha intiina dambe. waayahay baa la yidhi. waa boqorkii dee markaa dunida u xoog badnaa, waa kan maraykanka oo kaleu markaa dunida ka ahaa heracles. waayo waa labadii dowladood ee dunida ugu xooga badnaa, weliba tii xoogaysatay markaas iyo ta kala jebisay. meeshuu fadhiisiyey. abu sufyaan markii uu meesha fadhiisiyey buu wuxuu ku yidhi maa qaraaba, halkan aan joogo isaga qabsan doona buu leeyahy. waanan ogaa buu yidhi in nebi soo baxayo. waa nin ahlu kitaab ah. waan ogaa in nebi soo baxayo, maan se u malaynayn inuu qoladiinan carbeed noqonayo, maan u filaynin buu yidhi. ee haddaan awoodo waan u lugayn lahaa oo cagihiisaan maydhi lahaa. dabeetana wuxuu yidhi balkeena waraaqdiisa waxa ku qoran. weli lama akhrinin waraaqdii nebi maxamed soo diray, ee waxaa la baadhayaa oo waxaanu interview loo qaadayaa ninkan iyo wuxuu yahay in la ogaado. haatanse waxa u caddaatay inuu nebi yahay. waraaqdii baa la akhriyey. waraaqdu waa maxay? bismi illaahi araxmaani araxiim min muxammadin cabdillaahi warasuulih. waxay ka timi moxamed oo ilaahay addoonkiisi iyo rasuulkiisiiya, waxaana ku socotaa hiraql oo cadiimi ruuma, duqa reer ruuma,
salaamun calaa man itabaca alhuda salaani korkiisa ha ahaato ciddii hanuunka raacday intaa gadaasheed waxaan kuugu yeedhayaa islaam baan kuugu yeedhayaa islaam waad nabadgelaysaaye ajarkaagana 2 jeer baad helaysaa tii hore aad kitaabkiina raacday iyo tan dambaba 2 goor baa lagu siinayaa haddaad ka jeesatana dembiga arisiyiinta yacni dadkaad xukuntay ahlu kitaabkaa dembigoodaad qaadi doontaa haddaad diinta dhaafiso intaasaa warkii nebi maxamed oo ku qoran dabeetana nebigu aayad qur-aan ugu daray yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaa'an baynana wa baynakum ahlu kitaabu kelmadu kaalaya inoo dhex ah annaga iyo idinkaba anlaa nacbuda ila allaha walaa nushrika bihi shay-a aayadda qur-aan waxay sheegaysaa war ahlu kitaabow meel dhexe isugu keenkeena meesha dhexe la isugu imanaya waa maxay inaynu ilaahay keligii caabudno oo inaan cidna ugu shariig yeelin oo aan badhkeenna badhka kale rabbi ka dhiganin ilaahay sokadii haddaad sidaa diidaanna annaga markhaati nooga ahaada inaanu muslimiin nahay oo annagu aqbalnay ilaahay raacnay abu sufyaan markaasuu wuxuu yidhi laqad amara amru ibni abi kabsha nebi maxamed buu weli wax ka sheegayaa ina abi kabshe walaahi arrinkiisii weynaa buu leeyahy haddii boqorka rome joogaaba ka baqayo ninkaanu maka isku haynay haddii ninka rome joogaa ka baqayo buu leeyahay boqorka constantin ka taliyaaba hadduu ka baqayo arrinkiisa waa weyn yahay buu yidhi innahu yakhaafu maliku bani lasfar buu yidhi qadiyaddii markay halkaa marayso ayuu hiraqal dadka kala saaray wixii culammadooda ahay oo dhan buu isugu yeedhay bal kiniisaduu ku xareeyey albaabaduu u wada xidhay wada qafila buu yidhi albaabada markii la wada xidhay oo ciidankiisii intaa amray ayuu isugu yeedhay wuxuu ku yidhi waryaadhe waa ogtihiin in nebi soo baxayey ninkaa laga warramay ee waraaqdaa soo dirayna waa nebi aan raacno dabeetana wadaadadiisii baa qayliyey wadaadadii kiristanka ayaa qayliyo waabay yaaceen albaabada ka baxays yidhahdeen albaabadiina waa wada qafilan yihin kadib buu yidhi fadhiista haddaba waxaan eegayey bal waxa ay yeeshaan iyo diintiina sida ugu adag tihiin teennii baynu haysanaynaa hiraqal wuxuu arkay hadduu islaamnimada qaato inaan la raacaynin dabeetana waxay isu soo taagtay boqornimadii rome inuu haysto oo kiristankiisa ahaada iyo inuu muslimo daaqada laga tuuro ama se la dilo waa meeshan masaalixdii baa timi wataan idin idhi xaqoo qura dadku marar badan buu masaalixda eegtaa wuxuu eegtay maslaxadiisii ahayd inuu ilaashado boqortooyadiisa